أفراد ولا وين سؤال بنوتيس تنافر بس كده عين كريم سوق تنافراد وحوا دوي يعني يجا فكرته ويكر جريسو ويقولون حريصة أدبي وقمت حوا وإن شاء الله هذه أدو ما هتصنت السؤال شو لبعض أدا مو ما أدعي كرا thank you so much أنا ما ما علم أنا أقوم ولي أصلا السؤال شيء سكله كسر علي حمدي ماك قضاء قبق هذه هاي قلت إن waxay su'aashan waxay leedahay isla xamdi ma nooga sheegi kartaa waxyaabo negative ah oo dhihi lahayd iska bedel ama iska daa horta been ma ku sheegay negative qof bani aadam aan lahayn ma jiro because kullu aadam khada ani ma dhil mugtahay aad bani aadamku dhan wuu khaldamaya negative ka lagu sheegan waa khaladaad qofka uu leeyahay nafsad ilaahi dhameystirna adduunyada ma jirto negative ma lahan ma ku dhahay way leedahay laakiin waxa aad ugu faraxsanaa negative ka ay ayada leedahay sometimes ba inuu positive da qaar dadka ka sii wanaagsan yahay ma fahanti wow waligay ma maqlin negative qof leeyahay wuxuu ka wanaagsan yahay positive qof kale leeyahay dadka qaar positive yadooda xamdi negative keeda ka sii qiimo badan wallahi way dhacdaa waa xaqiiqo ma sha Allah xamdi waxaan ku leeyahay keep going walaashay macaan hore u soco waxa u dhiibtaa markaan meega su'aashan wax iska le kaafi ما kanaalka عادي السؤال haddii arinta soo noqonayso cadaalad ma jirto cadaalad way soo noqon lahaa way soo noqonaysaa laakiin waxa la dhahay sida diinta islaamka qabta men is fast she's real true good my pointing and is okay waxa qala lacag iibirtaan waxa ku dhaayay women is fast wallahi marka lacag noqoto de ilaahay wuxuu dhahay rijaal qawaaniin الرجال قوامون على النساء لكن simple and clear halka ku hay ay ugu sibadine كافي سؤال هذا يكون مرسا كافي سؤال شو حنا leedahay sida tan haasal maadaama ay xaaskaaga tahay maxaa ugu abal gudi lahayd hadii ay hal mar afar mataana ku dhasho ما شاء الله كانت hadii hal mar hadii afar mataana ku dhasho maxaa ugu abal gudi lahayd wallahi horta sida saxda ah hasal iyo aniga horta qisadeena horta Soomaaliyeed way ogtahay hadii si loo fiiriyo xaalada adagoon soo marnay waxa ay sameysay xataa waqti xaadirkan waxaan ugu abaalgudo ma garanayo hadii kaliya ay noqoto nafteeda iyo naftayda waxaan aaminsanaynaa teeda badbaadin lahaa teedana adin lahaa sida iyadu hadda ka hor nafteediina ay macnaha naftayda ugu doorsatay oo kale marka hadii afar mataana ii dhasho waxaan ugu abaalgudi lahaa wax walba oo ayadaas dhiilaa markaas way farxad gelinayaan okay ma sha Allah ilaahay isku kin barakeeyo afar iyo ka badan Allah idin siiyo isla haasal maxay negative oo aad dhihi lahayd iska daa horta soo xasan sheegay waa qofaan maaragtay aan adiga wax negative lahayn ma jiro wax maanta haasal maanta aan dhihi lahaa iska daana oo badan way jiraan laakiin intii badnayd anoo iyadoo khaas ah ban dhahayba waxayna ku fiican tahay iyadoo dadka maqalka ku wanaagsan hada maanta ay khaldanto doctor waxa si xasoo khalad iskaga leexanaya ma sha Allah gabdhaha wax maqalka lagu yaqaanay aad ba ugu dhagal nugulnaha xagga maaragtay markii la noqdo soojad iyo maaragtay reer dhisan markii inta kibrino dha sas ku hayno inta banaanka joogno aad horta aad ba mahadsantihiin waxa u dhiibtaa su'aasha kale waxa iska leh Xasan Sooya way waa dhameynaa barnaamijka kiiska waana kale geerkan waa jira meeshii loo jira ku soo maya waana la imtixaan iska soo kartaa adiga idinku xaasaskina idin astaana ka dhamaada xaaladda ana akhriyay ordin dhiiqaa gali aan ku cishto حسن سؤال waxay leedahay xamdi hadii lagu dhaho 20 days ma arkaysid waana ku qasban tahay waxa sameyn lahayd only 20 days yeah only 20 days waaye ma 20 years ma only 20 days only raaci ma had su'aash waa la timid inta igu only horta igu darin 20 days da waxa ku dhaay days only kula 20 days
not even 21 not 22 waa only 20 days ma arkay xataa ma maqli ma ba arkisi mana maqlaysid mana urinaysid option isiya marka option waxa isiisa waxaas i taas mid dooro ide maya kuma siinaayo adigu maxaa samayn lahayd waa nolol ciriiri inta aan la gaarin waa nolol bila farxad hadii lagu dhaho xamdi waa nolol bila maxaa yiraahdaa qosola waa nolol bila hormara waa nolol bila actifa waa nolol stresskeeda wadato bismillah abaa ma ku dhibay bad hadba imagine gray waxaan naga shiisay image yar naga sii oo aan fahmay hadda waxa ku sawiraya after that 20 days wuxuu dhici karo maanta markay ii dhamaato koo horta waxa uu ka lahaa nin ka soo baxay xabsi 20 sano ka hor 20 sano kadib koo labo waxa like u farxi lahaa sida nin ay 30 sano ka maqneed wadan kale kaga nooleed ay maanta elboorka uga soo degto kale ba u farxi lahayd laakiin adii xaasidata hal mid kugu daraya maalinkaas lagu dhaho xamdi waatana waa arkaysaa yani ma oyn lahayd mise okay horta 20 days waxa u sii qori lahaa meel waxa u sii record gareey lahaa video every fucking day waxa aan sameynaa aan u sii qori lahaa waxa aan qoray dhan waxaan qala aan duubay waxa iyada maalin walba dhihi jiray aan u keedin lahaa 20 days waa u keedin lahaa ha ma fahmin ala jacaylo wuxuu midaa okay maalinta dhimaado si deenteeda ugu gudo si aan wiligeed nolosheeda dambe u dareemin inuu xasan mar 20 days ka maqnaa waa u keedin lahaa xasuuseeda waa mahadsantahay laakiin ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuusan idin kala geyn wallahi you deserve it markaan waxaa iskale boqorada Hasaal war hadday dhexdhexaad markaan wiilasha saa u rifayay waa wareereen wiilashii markaan way ii nasanayaan Hasaaley lacala kaafi xaaskiisa tahay marwa meel degan baa tahay ma sha Allah reer dhaqmo oo buuxa baa tihiin Hasaaley hadduu kaafi ku dhaho naag kale baan kula guursanayaa ama adduunkaaba ka tagayaa waaba lagu dhahayba asagu kamaba imaanba dad baaba xataa ku yiraahday kaafi naag kale kula guursanayaa ama asaga badbaadi ama naagtaas ku qaado ama asagu ka tagaba adduunka ama naagtaas ku qaado waxa sameyn lahayd kaafiyo su'aasheeda si fiican u fahmiyaa kaafi baad weynaysaa adduunka ka tagaya ama naag buu kula guursanayaa kala dooro naagta hayla guursada aniguna waa ka tagi lahaa maya kamaba tagaysidba meel u socotid male there's no another way waa dhimanaya ninka loo kaafi oo adduunku ka dhaqaajinaya ama naagtaas kula qabayaa su'aal baa markaa weeyaan Hasaaley حمدي تلم كلها عيشو حمدي تلكم اليد حمدي تلكم اليد كافي انا متشنين maya يلا تستواها igana raal noqol alwa ku jeedaay wadnaha ku istaagay na wadnuhu ka haya kaafi kala dooro wala daran xasan kaade kaafi Hasaal laba daran mid dooro way sheekadu xamdi كل نفس ذائقة الموت xamdi dhimasho ma qoro maxaa sameeyaa هذا كنت هبينك باي ha guursado laakiin aniga ma arki doono هذا عدد ما تجي سيدا ولا قد هاي لبا لكو Hasaal waxa ku dhahay there's no another way ba ku dhahay haya option saddexaad ma jiro ha dhinto ذائقة الموت ايد صح إذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقيمون waxaas Hasaaley hal mid baan ka oranaya waxaas jacaylka waa waxaas waa jacaylka waxa sad jacayl baa ka yeersiinaya laakiin anigu waxa aaminsanahay xasankaadi Hasaaley aniga hal mid ayaa aaminsanahay aniga qofka adduunka aan ugu jeclahay waqti xaadirkan naag iska daayay war halkaas anoo fadhiya haduu dhaho 10 baan wadanaya ama adduunkan ka tagay wadaan dhihi lahaa walaal gacali kadibna bal markaad ka soo dhamaatay naaga isku keenkeen baan dhihi lahaa سؤال شوي سمعنا of course why not intu adduunka iiga tagi lahaa كاوي ولا لا qof aan jeclahay adduunka ka taga haba taga ha iska dhinto قف هدوك وجعلها قف كلا همي وما هايو war fiiri adduunka fiiri option kala jira aan naagtaas xataa ninkaaga uga reebi kartid maya okay laakiin mid meesha taala horta runba fiican badana sug xasan isi almar والله ما wado والله isku dirid ma aha almar isiya almar ahlo ايش gabadhi way ka jawaabtay ma ka socon ha maya حمدي almar aan ka hadlo horta eeg dumarka inta badan masirka wala yaaba moogtaa
laakiin haddii macnaha hal mar iska soo qaadid in xaaskaaga lagula qaybsado aad bay u adagtahay soo ma waa hadda si sax waa sida sax laakiin ilaahay optionkaas ma siinin suuroobayso macnaha ma suuroobayso qofku haddii uu ilaa inta maseer gaadhana maseerkaas waxa weeyaan shakhsigan inuu isaga kaliya haysto raba in la qaybsado ma rabo taasna jacaylka ku kalifay taas jacaylka keenay of course laakiin waxa lagu yiri ama waa dhimane ama adduunku dadkiya ama adduunku jacaylku wuxuu gaarsiiyaa ma taqaanaa qofka wuxuu jacaylku gaarsiiyaa ilaa indee had inta qof kale uu heli lahaa qofkaas inuu qofkii ku jeclaa kawkaas iyo asagana uu kaw iska siiyo way dhacdaa way dhacdaa hadaas kale xamdina xamdi maxaa ana igu xigtaa waarun walaa su'aal xamdi laga booday waraa khayr Allah ku siiyo qofta qaba noloshu qofta am xafsun diba ii su'aashay ani waxa haasal waxa ku xigta kaafi waxa ku xigay kaafi baa ku xigay kaafi dib haasal banqac ka siiyo markaasan kaafi deynaya miya laakiin waa dilay oo fogaat naga daayaan la dhiin gabadhay wiilka ku gabteen kaafi oo su'aashu waxayna leedahay kaafi hadii la cala haasal lagu dhaho labadaada kaliyood u bixi hadda waa labadaba hal maahan ya labadaba u siib baa lagu yiri saaxiib hadaaba roo nolosheeda rabtidba inay ku noolaato mu siibi lahayd ha wana bixin lahaa labadaba lajal baata ilaahay idinkama siiyo de afka lee laga dhag wixii run maaha ma yaa ku sheegay dadku u baaha way ilaahay ma ku baahay ilaahay xabiibtay xamdi dhiiba xamdi baa iska lamidaan jawaabno gabadha jawaab xamdi baa iskala su'aashan waxayna leedahay xamdi haddii lagu dhaho xasan ama wiilka kula dhashay oo walaalkaaga ah labadooda mid badbaadi mid baa adduunka ka tegaya keema badbaadin lahayd walaalka kula dhashay baa lagu yiri waa baxayaa waa dhaqaajinayaa ama xasan baa dhaqaajinaya mid badbaadso keema badbaadin lahayd qurux badane bismillah horta ilaahay naguma keeno ilaahay kuguma keeno laakiin lacala way dhacdaba ilaahay naguma keeno haddii ay dhacdo walaalkiya badbaadin lahaa sababtoo ah hooyaday marka lama dhalayso okay laakiin marka la waleyn karaa ha kasoo she's right bas xantay soo aan xasan ku weydiinayo waxa waaye lacala waxa ku soo baxday safara ku soo baxay xamdi waa jeceshahay waa ognahay iyadoo ku jeceshahay waa ognahay ilaahay isku kindaayo laakiin safara ku soo baxay safarkaas you never know inta aad ku soo noqon kartid ma bixi lahayd waana ku khasbanta in lagu waa baxaysaa baa lagu dhahay option option like xamdi darteed mu joogi leed soo bixi leed ha saasa ka wada xamdi darteed mu joogi leed option haysta marka hade horta xamdi iyo aniga wax walba oo nolosha horumar waa isla qolaasayna waa isla fiirna yani waxaan ka wadaa waa hor dhigi lahaa saasi wax u jiraan sidee waa aragtaa haddii tiraahdo inaa safarkan gashid waxaa igala qiimo badan inaa aniga ila noolaatid oo ila joogtid wax walba isla qabnaba laakiin aragtidaada ila joogaaga nolosha wax walba muhiim uga arkaa haddee dhacdo jacaylkeeda ila joogeedan ka doorbidi lahaa safarkaas ayadan la joogi lahaa waaw maasha allah yaan kuu siiyaa meeg walaal xamdi xamdiyey su-aashu waxay leedahay xamdiyey adiga iyo ninka la dhaho xasan sooya waxaa idin haray haddii ilaahay nafta idiin daayo waqti yar baa idin haray inaad reer buuxa noqotiin oo meel degtiin أنا وقت يرى كوار مركا مقل دمشق وصل على والله حسن ودنو قبت قعنتو دمشق والله محنيدة وصدعوا إلى دمنيسان ها مايا ساس كمور وقت كذا لا تاسي أنا قدايو وحابة يعني وحقير بعدين كهراي إن يعني غير لسنا ميل دكتا النقطين that's what I mean so مركا إن حسن وايس قرستين ميل بعد دكنتهين إن وحال لقول هاي حسن وحكوا له حسن ولا الحمد أنا وكنت شعلهاي وأكتهاي وحكست دونك أتعش هاي باكسينيا حتى كبها الذهب باكر جيا إنك كل كرسي يقولوا
fiir adi meeshaan dagaal u imaaday diiro inaad duuto maadan u imaanin walaal macaan nagu kala wada muuqaalkan intaas kusoo gabagabeynayna aadaan u mahadsantihiin muuqaalka lama xiraayo bila jawaabta maxay ana youtube kaska leh manaag mise xamdi adiga fiiri adiga dhageyso horta manaag adiga waxaa lagu dhahay ii ogolow waa simple question ama hanti la'aan ama kabahaaga ku soconaysid hantida ka waxaa lagaaga dhigayaa walaal anaag wax barta ay waa shaqaysan karaa weligay kuma riyoonin nin xoolihiis inaa helo laakiin nolosheeda ani waxaan ku riyoonay wax waa qof naftiis ii huraya naaga ayagoo wax barteen oo waliba xoolale oo waxa weeye naagta kale ka qurux badan tahay baan ani nafsadeeda ku kalsoonahay ani nafsadeeda ku kalsoonahay inuu qofka damo uu isku kalsoon yahay ma u baahan inuu qof kale bini aadan dhiirigeliye ka qaato soo ani nafsadeeda ku kalsoonahay xasan haduu aniga reality ii jecel yahay ila joogaya haduusan ii jeclan qof kale uu raadinayna de wadada u furan tahay because qofka bini aadanka adi sida ka kasbatid waa sida aad ka yeelatid yes waa mahadsan tahay asxaabta ana nagu soo wareegay janaalkan daba aninaga diliiga weydiin dagaal baa ka dhacay xamda adduunka ilaahay waxay ugu nacab tahay kaligeedna ma ahan waa kulligayo waa ka simanahay aniga ma maqli kariba xataa markaan sii maqlaayo wadnaha xanuunaya maya dee walaal fiiri aniga iyo idinku hadda toban ninka ha qaato aniga inta u fadhinaya markuu ii soo laabtan sugaya taasi waa markay dhimasho imaato geeriha markay imaato la ninkaaga waa laga wadaya inta malka mawdka ma aad ka sheekay wallahi xabso aan iskugu tagay Falastiin waan iskugu tagay meesha 3 qof oo ku fadhina habeen dhow say